kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Somali News Media qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan warkeena waxaa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala diray golaha adeega garsoorka qaranka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay dhisay dawladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababtu maxay tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muxuu u beegsanayaa guddigii oo dhisay madaxweyne Farmaajo waa daawan doontaan saaxiibayaal gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe yaa dalka Holland u aaday taageero dhaqaale oo u raadinayo mooshin ka dhanaa golaha xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre iyo gudoomiyaha golaha shacabka maxay isku hayaan maxuu salka ku hayaa khilaafkooda maxaa ku soo beegay waqtigan barnaamij wareedkeena ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa diiday inuu kulan gaar ah la qaato taliyaha Nizam Mahad Salaad sababta uu ku diiday maxaa ka qarsoon oo aadan ogeyn oo ka dhaxeeya Fahad iyo Mahad Salaad dawladda Soomaaliya ayaa xirtay dhammaan barihii internetka lagu baahin jiray wararka been abuurka ee kooxda Al-Shabaab dhanka kalena kooxda Al-Shabaab ayaa digniin xoogan u diray warbaahinta Soomaaliyeed ayadoo dhanka kale ugu baaqday inay shaqadooda u gutaan waxa ay ugu yeertay ammaano iyo hufnaan digniinta Al-Shabaab ka soo baxday warbaahinta Soomaalida ma tixgeli doonaan sidee ayay uga falceliyeen warbaahinta hadalka ka soo yeeray Al-Shabaab waa daawan doontaan saaxiibayaal xogta wada hadalka u socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo ahlu sunna Sheekh Shaakir oo hogaami doono dagaalka Ceelbuur dalabka ahlu sunna iyo wada hadalka taleefanada Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shaakir dhaxmaray ayaad warkeena dhawaan ku daawan doontaan saaxiibayaal odayaal ka soo jeeda beesha Duduble ayaa hubka u qaatay inay difaacaan Al-Shabaab maxay ka dhigan tahay in odayaal Soomaaliyeed ay hadda difaacaan Al-Shabaab oo gabaabsi sii maraya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan saaxiibayaal balse marka hore waxaan idinka codsanayaa in aad muuqaalka share gareysaan sidoo kale aad leegareysaan subscribe-na saarataan si ay idin soo gaaraan warbixinadeena waa hagaag aanu ku bilowno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala diray golaha adeega garsoorka qaranka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee dhistay dawladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dagaal cusub ayaa ka dhex qarxay nabad iyo nolol Xasan Sheekh Maxamuud ayaa durba bilaabay inuu beegsado guddiyadii ee dhistay dawladii hore uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta wareegto soo saaray waxa uu ku burburiyay golaha adeega garsoorka qaranka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa waxa uuna sheegay inaysan habraac sax loo marin dhisitaanka golahan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u beegsanaya guddigan inaysan ahayn golihii saxda ahaa talaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhigan inuu dagaal hor leh ka dhex qarxay nabad iyo nolol iyo sidoo kale damul jadiid dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa dalka Holland u aaday taageero dhaqaale oo u raadinayo mooshin ka dhanaa golaha xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre iyo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa isku qabtay lacag loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay saameysay abaartu taas oo ay hayso xukuumadda Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa dalbaday in la soo marsiyo lacagtaas balse Xamza Cabdi Barre ayaa ka dhiga adeegay asagoo ku andacooday inay xukuumadda Soomaaliya ugu talagashay inay gaarsiiso dadka ay abaartu saameysay sidaas darteed gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa qaatay go'aan ah in gibin ahaanba meesha laga saaro xukuumadda Xamza Cabdi Barre waxa uuna Holland u aaday inuu soo qaato lacagtii uu ku kala furi lahaa xukuumadda waxa uuna markii uu soo laabto kulan degdeg ah isugu yeeri doona xubnaha golaha shacabka dhanka kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa diiday inuu kulamo la qaato taliyaha Nizam Mahad Salaad oo ku sugan dalka Qatar ayaa dalbaday inuu kulan la qaato taliyihii hore ee Nizam Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa Mahad Salaad ku eedeeyay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab xilli oo wareysi siiyay mid ka mid ah warbaahinada ka howlgala Soomaaliya ayuu ku sheegay inuu Mahad Salaad khatar ku yahay amniga Soomaaliya Mahad Salaad oo si weyn uga biyadiidsan arrinkaas ayaa dalbaday inuu la kulmo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir balse Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ku gacan saaray inuu la kulmo Mahad Salaad dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa xirtay dhammaan barihii internetka ee lagu baahin jiray wararka been abuurka ee kooxda Al-Shabaab iyo fiilimadooda argagax leh dawladda Soomaaliya ayaa cadeysay inay gibir ahaan bixirtay barihii internetka ay Al-Shabaab ku baahin jireen warkooda wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Al-Cadaala ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay meesha ka saaraan dhammaan barihii internetka ee Al-Shabaab ay ku baahin jireen warkooda maxay ka dhigan tahay Al-Shabaab ayaa lagula jiraa dagaal dhinacyo badan ah waxa uu dagaalkan qayb ka yahay dagaal kacdoon ah oo Al-Shabaab looga saaray meelo badan oo kamid ah Soomaaliya
al-shabaab waxa ay waayeen barihii ay dadka fariimaha u gudbi jireen waxayna dhankooda dignuun u direen warbaahinta waxayna sheegeen inay dhaxdhaxaad ka noqdaan hadalka ka soo yeeray dawladda Soomaaliya balse warbaahinta ka howlgasha dalka ayaa joojisay dhammaan xogihii la xiriiray al-shabaab waxayna magaca al-shabaab ka ilaaliyeen dhammaan wararkooda al-shabaab ayaa dulba dareemay inuu dhaqan galay warkii ka soo yeeray dawladda Soomaaliya waxayna haatan wajahayaan culeys fara badan oo uga imaanaya dhanka dawladda Soomaaliya ayaa weerar aan loo meel dayn ku qaaday al-shabaab taasoo ah inay xirtay barihii internetka ay ku gudbin jireen warkooda sidoo kalena ay ka saartay goobo badan ay ku sugnaayeen taas oo dakhli badan uu ka soo geli jiray al-shabaab dhanka kale odayaasha duduble oo difaacaya kooxda al-shabaab ayaa ka soo muuqday warbaahinta iyagoona sheegay inay isku diyaarinayaan inay al-shabaab kala qayb qaataan dagaalka ay kula jiraan dawladda Soomaaliya balse odayaal kale oo iska abaabulay magaalada Muqdisho ayaa iyaguna dhankooda sheegay inay diyaar u yihiin inay difaacaan dawladda Soomaaliya ee ka qayb qaataan dagaalka al-shabaab lagula jiro odayaalka ka soo muuqday warbaahinta oo isku sheegay inay yihiin beesha duduble ayayna ku tilmaameen inay yihiin kuwa been abuura oo ka tirsaneen beesha balse al-shabaab ay ka been abuuranayaan duduble oo lagu yaqaanay inuu iska dhiciyo al-shabaab ayaa haatan u muuqda mid u kala jabay laba garab balse maanta wixii laga bilaabo waxay odayaasha ku nool Muqdisho ee duduble ay ku dhawaaqeen inay hubkooda qaadan doonaan ayna iska kicin doonaan kooxda al-shabaab markaana haddii aan eegno dagaal faraha loogu gubtay ayaa maanta al-shabaab iyo ciidamada dawladda oo garab ka helaya kuwa macaawislada ku dhaxmaray duleedka magaalada Buuleburde halkaas oo al-shabaab ay weerar ku qaadeen sida ay noo sheegeen dadka deegaanka al-shabaab ayaa weerar cir iyo dhul ku qaaday deegaanka Jicib oo hoos taga degmada Buuleburde faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya balse khasaaraha rasmiga ah ee al-shabaab halkaas lagu gaarsiiyey sidoo kalena ciidamada dawladda gaaray ma cadda markaan haddii aan eegnana abaabul xoogan ayaa laga dareemayaa gobolka Shabeellada Dhexe ciidamo fara badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ku sugan jiida hore ee dagaalka cadale ayay isku aruursanayaan waxa ay weerar dhul iyo cira ku qaadi doonaan kooxda al-shabaab ayaa durba bilaabay inay ka guuraan meelihii ay kaga sugnaayeen gobolkaas qax xoog leh ayaa ka bilowday gobolka Shabeellada Dhexe dadkii ugu badnaa ayaa ka soo cararay goobta ayaa noqotay goob dagaal waxaa la qaadi doonaa dagaal dhulka iyo cirka ah diyaaradaha ayaa howlgeli doona sidoo kale ciidamada ayaa dhulka mari doona dagaal xoog leh ayaa saacadaha soo socda ka bilaaban doona halkaas waxayna wararku ay sheegayaan inay haatanba dhaqaaqeen ciidamada xoogga dalka ayna diyaar u yihiin inay dagaal foolka la galaan kooxda al-shabaab hadday isku soo babac dhigaan guud ahaan warkii aad ka daawanayseen Somali News Media daawadayaal waa naga inta ay nabadgelyo intaan ku kulmayno barnaamij wareedkeena kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo